laakiin waxaan arkayaa dad badan oo dhaleeceynaya Turkiga ayaa Soomaaliya waxa way hantideeda dhacaya dalka Turkiga ayaa Soomaaliya boobaya dalka Turkiga ayaaba waxaan u nahay ma taqaanaa adoon oo aan slave u nahay runtii lagu soo shaaciyay dad aad u fara badan ee lagu soo shaaciyay baraha bulshada especially space-ka runtii lacag gaar ah in lagu soo siiyay dareemaysid marka waxaan la yaabanahay waxay iloobeen horta Soomaaliya waxa way qeyraadkeeda in la soo saaro waa muhiim in badan ayaa waxa way laga soo bilaabo 1954 ilaa iyo hadda ayaa la lahaa shidaalka Soomaaliya shidaal bay leedahay kan bay leedahay cid inoo soo saarta ama haba yaraatee waxa way runtii in nagala shaqeysana ay aad iyo aad waxa u yarad laakiin waxa guul ah maanta Turkiga inuu nagala shaqeynayo marka dad kale waxa way Soomaaliya ayaa slave iyo Soomaaliya ayaa hantideeda dhacaysa waxay iloobeen Turkiga inuu waxa way horta saaxiib runtii muhiim ah oo yahay Soomaaliya hadaan nahay iyadoo majaaco iyo gaajo iyo dhibaato 2011 dadkii soo arkay iyadoo wax interesaysan naga lahayn waxdana aysan naga lahayn ayaa gurmad runtii waxa way aan marnaba la qiyaasi karin Ra'iisul Wasaare Erdogan iyo familkiisii ku yimaadeen magaalada Muqdisho iyadoo xaalad abaar iyo xaalad xun ay jirto oo runtii waxa way dadka iyo xoolaha ay sida waxa way ma taqaan duqsiga u baqtinayeen ayaa markaas uu noo yimid runtii waxa way deeqaha dalka Turkiga iyo shacabka Turkiga albaabada iyo deeqaha ay inoo fidiyeen aan marnaba la iloobi karin marka in la yiraahdo waxa way dalka Turkiga ayaa maanta waxa way Soomaaliya gumaysanaya hantidooda dhacaya kan dhacaya runtii waa dad ka bay sheegaya runtii ama aanan ogolaan in Soomaaliya horumar ay ku talaabsato waa dalal u shaqeeya dad cadow ah waa dalal u shaqeeya dadka dalka kala goynaya dadka maanta ku faraxsan in Soomaaliya la kala jara ee waxa way nimanka Yuhuudda ah ay runtii waxa way dalkeena waxa way qayb kamid ah aqoonsadaan waa dad ku faraxsan laakiin waxaan leenahay maanta waxa way Soomaaliya hariyada faqriga iska tuuraysa Soomaalina waxa way maanta waxa way waxay gali doontaa nolol aysan hore u arag marka waxa way cidii runtii ku farax lahayd ama cidii ka naxin lahayd ceelasha ugu horeyna laga qado doono deegaanada galmudug oo baaritaankooda hore loo sameeyay haday noqoto 3D-gi iyo seismic-gi iyo runtii waxa way ma taqaanaa sahmintii Soomaaliya waxay leedahay 220 ceel iyo wax ka badan runtii maanta waxa way wax hadda aan ka hadlaynaa waa 3 ceel oo kaliya marka waxa way caalamka hadda lagu leeyahay waxa way shidaal noocaas oo reserve ay leeyihiin oo waxaan 200 ceel iyo wax lamada aanan gaarinin wax 10 ceel iyo wax ka hooseeya maanta waxa way Soomaaliya hadda iyadoo 3 ceel kaliya shidaalkeedii la soo saaray ayaa number 6 na la geliyay Kuwait iyo dalalkii waxa way runtii naga sareeyay inay maanta waxa way naga hooseeyaan maanta waxa way dalalka adduunka reserve ah ama shidaalka kaydka dadka leh inaan number 6 ka nahay haddii wax kuwa kale la soo saarna iska bada marka runtii waa guul ummadda Soomaaliyeed ee faqriga iyo heeriyada ay isaga tuurtay marka in la soo wada dhaweey ayaa muhiim ah waxaan leenahay guul iyo